qadar ilaahay bay ahayd dadkaasi xaqa raadin hayay oo xaqiiqada goobahayay inay kulmaan oo ishaleelaan ayagoo ku kulmay xaqa alle uu ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala dabadeedna sameeyey jamaaco isugu timid inay u gargaarto diintan dabadeedna magaceedu uu noqday jamaacadaas assaadicuuna bilxaq 40 sano waxaa noo sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa ummaddaani caafimaadkeeda inuu ay ku jirto iyada oo u noqoto rabbigeedii raallina ka noqota allaheeda abuuray samaawaadka iyo ardada walaalayaal waxaan idinla imaanay dacwo midaysan oo lagu soo koobi karo hal oraahdaasoo ah wixii ambiyada ilaahayba ay ku oran jireen ummadahooda oo ahayd ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh war alla caabuda ilaah kale ma lihidiine بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع كصابسا بحل ريبك جماعة السادعون بالحق ee u samaysmay muddadii dheerayd iyo geedi socodkoodii dacwada oo ay ugu tala gashay inay la wadaagto ummadda si ay uga faa'iidaystaan si la eg ama la mid ah siday jamaacadu uga faa'iidaysatay waa dareemadayda iyo xusuusahayga la xiriira dhaxal reebka jamaacada assaadicuuna bilxaq oo aan rabo inaan wax ka tilmaamo saamaynta uu noloshayda iyo samayska noloshayda oo uu qaybta ku leeyahay bartamihii qarnigii tegay waqti duulaan maskaxeedkii reer galbeedku caalamka islaamka ay ku qaadeen iyo hawshoodii ahayd dhaqandoorinta caalamka islaamka iyo u ekaytintiisa dhaqamadoodii iyo akhlaaqdooda uu marahayay halka ugu sarraysa waqti ay isku darantay xaqaa'iqdii mugdi weynna ay gashay oo ay jaahiliya saamayn ku yeelatay ama ay dabooshay caalamka oo dhan xaaladda sidaas ah waxaa jiray dad si dhab ah oo run ah mugdiga uga dhex raadinhayay nuurkii alla subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay aadanuhu inay adduunyadan ku joogaan alla subxaanahu wa tacaala fadligiisa dadkaa wuxuu ku hanuuniyey oo uu haleeshiiyey nuurkaas taasoo u suuro gelisay inay gartaan oy fahmaan si dhab ah ereybixinnada iyo xaqaa'iqda islaamka ee nabiga calayhi salaatu wassalaam uu la yimid iyo sidii ay u fahmeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim qadar ilaahay bay ahayd dadkaasi xaqa raadin hayay oo xaqiiqada goobahayay inay kulmaan oo ishaleelaan ayagoo ku kulmay xaqa alle uu ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala dabadeedna sameeyey jamaaco isugu timid inay u gargaarto diintan dabadeedna magaceedu uu noqday jamaacadaas assaadicuuna bilxaq jamaacadaas markii ay samaysantay tallaabada ugu horreysa ee ay ku dhaqaaqeen wuxuu ahaa sidii ay xoogga u saari lahaayeen sal u dhigidda iyo dhidibow aasidda xaqaa'iqdaas iyo macaanidaas islaamka uu leeyahay oo dhanka naftooda ah marka hore ilaa ay gaaraan
kalsooni iyo xasilooni inay heleen fadliga ilaahay dartii xaqii allah subxaanahu wa tacaala uu raalliga ka ahaa ayagoo kala soo dhex baxay qur'aanka kariimka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo fahamkii dhabta ahaa ee salafkii suubanaa ay u fahmeen diintan mafaahiimtaas waxaa ka mid a fahamka dhabta ah ee islaamka fahamka kelimadda tawxiidka laa ilaaha ila allah fahamka macnaha cibaadada fahamka macnaha kelimadda addiin fahamka jaahiliyada iyo fahamka taaquudka iyo dhammaan mafaahiimta iyo eraybixinnada iyo xaqaa'iqda islaamka uu leeyahay tallaabada xigtay waxay u istaageen in ay baaritaan ku sameeyaan oo ay u kuurgalaan xaaladda ama waaqica ay ummaddani ku nooshahay ayagoo ku eegahaya fahamkaa dhabtaa ee xaqaa'iqda islaamka ilaahay ku manaystay subxaanahu wa tacaala dabadeed waxaa u soo baxday maadaama ilaahay xaqii uu tusiyey xaaladda lagu sugan yahay inay arkeen in ay ka fakaraan siday xaqan dadka u gaarsiin lahaayeen ilaahay ku manaystay kadib markii ay daraasad iyo u kuurgelid ku sameeyeen qur'aanka kariimka iyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu ku hanuuniyey inay haleelaan manhajka saxda ah ee alla uu ugu talagalay dacwada gudashadeeda iyo gaarsiinta xaqa subxaanahu wa tacaala dabadeed jamaacadu waxay bilowday dhaqaaqeedii barakaysnaa kadib markii ay ku xasileen oo ay ku qanceen saddexdaa tallaabo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u haleeshiyey xasilooni iyo qanaaco qalbigoodii naftooda ka buuxisay oo ka dhigtay inay ku kalsoonaadaan oo ay ku qancaan dariiqan hanuunka ee ay ku socon hayaan ee alla subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey ayaga oo kalsooni ku qaba alla subxaanahu wa tacaala maadaama uu xaqan ku hanuuniyey inuusan dayacaynin kuna sii daynaynin keligood dariiqaa inay ku socdaan halkaas ayaa waxaa ka bilowday marka dhaxalreebka assaadicuuna bilxaq wuxuu ku bilowday dhaxalreebku sal u dhigidda iyo dhidibow aasidda mafaahiimta saxiixa ah ee mustalaxaadkii xaqaa'iqda islaamka iyo garashada xaqiiqada waaqica ee maanta dadku ay ku nool yihiin marka lagu eego mafaahiimta islaamka iyo xaqaa'iqdiisa kadibna inay salka u dhigaan oo ay dhidibada u aasaan manhajka ku habboon ee mudan ee saxiixa ah ee dacwadan in loo istaago xaqana lagu gaarsiiyo dabadeed waxaa weeye saddexdaa tallaabo kadib jamaacadu waxay bilowday dhaqdhaqaaqeedii barakaysnaa iyo socodkeedii dariiqaa dheer ee ay waxaa weeye alla subxaanahu wa tacaala xaggiisa ay ugu jeeday ayagoo raacahayay laba khad oo isbarbar socda isku marna ah labadaa khad waxa weeye tarbiyaynta xubnaha jamaacada tarbiye islaami ah oo saxiixa oo ah islaamkaa ay fahmeen inay ku noolaadaan noloshoodana ay ka muuqato iyo khadka labaad oo ah inay u istaagaan in ay dadka gaarsiiyaan xaqa alla subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay waxaa weeye hawshaa iyo dhaqaaqaas waxaa ka dhashay iyo dacwo gudashadaas arrimo iyo masaa'il u baahan in la caddeeyo in salka loo dhigo in dhidibada loo aaso sidaasuuna ku bilowday turaadkii ama dhaxalreebkii jamaacadu kadibna uu si tartiib tartiiba u weynaaday iyadoo alle subxaanahu wa tacaala uu had iyo jeer xubnaha jamaacada u furahayay arrimo islaamka la xiriira ee ayaga khuseeya iyo socodkooda xagga alle subxaanahu wa tacaala ay u jeedaan sidaasuu marka dhaxalreebka jamaacadu ku weynaaday oo ku koray si tartiib tartiib ah asagoo la hana qaadahaya ama la jaan qaadahaya hadba dhaqaaqa xarakada iyo baahida iyo qadaayaadka ka dhalanhaya waxaa weeye hawshaa ay jamaacadu u istaagtay ee wado sidaasuu wakhtigu isdaba socda ayay hadba uu isla bedelahayay waxaa weeye dhaxalreebka ay jamaacadani noloshooda ay ku dhisahayeen ayagoo waxaa weeye hadba
baahida ay u qabaan iyo siday ugu baahan yihiin hadba wax ugu kordhinhayay. arrintaasi waxay keentay inuu si degdega u koro dhaxalreebka jamaacadu una ballaarto ilaa uu gaaray waxaa weeye meesha uu maanta joogo oo waxaa weeye runtii aad iyo aad meel u cajaa'ib badan ah. wuxuu gaaray ama uu u muuqanhayaa sidii webi biyo macaan oo waxaa weeye cid walba oo u aroorta ay ku oonbaxayso. wuxuu u muuqanhayaa sidii beer weyn oo geeda badan oo miro badan, miro aad iyo aad u macaan badan ciddii u doonata. wuxuu u muuqanhayaa dhul doog ah oo aad iyo aad u cagaaran oo ku dhex jira waxaa weeye lamadegaanka iyo kulaylka uu leeyahay markay dadku alle ka fogaadaan subxaanahu wa tacaala. wuxuu u muuqanhayaa sidii geed wanaagsan oo asalkiisa ama xididadiisu ay sugan yihiin, laamihiisuna ay samada jiraan oo mar walba ay ka imaanhayaan miro waxtar ah idanka ilaahay subxaanahu wa tacaala. kama zuulin marka dhaxalreebku inuu koro oo uu siyaado hadba marka dhaqaaqa xarakadu uu siyaado fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ricaayadiisa. haddaba dhaxalreebka sidaasa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu igu manaystay karamkiisa iyo fadligiisa inaan ku noolaado webigaas biyaha macaan oo aan dhex dabaasho oo waxa weeye aan quuso gudihiisa hoose si aan uga helo waxa weeye waxaan ku noolaado oo ruuxdaydii qalbigaygu ay ku noolaadaan. alla wuxuu igu manaystay subxaanahu wa tacaala inaan ku dhex noolaado beertaa weyninka badan ee geedaha dhaadheer ee quruxda badan leh in la eg ama gaaraysa 40 iyo dhowr sannadood oo aan ka gurto hadba wixii naftaydu ay u baahan tahay. runtii arrintaasoo ahayd waxaa weeye cimri yacni runtii qurux badan. bidaayada marka noloshaas aan ku noolaa ama dhexjoogaasi waxaa weeye wuxuu ku salaysnaa 3 tallaabo ee ayan ka maarmaynin ama uusan ka maarmaynin qof walba oo doona inuu alle subxaanahu wa tacaala caabudo cibaado dhab ah ama alle subxaanahu wa tacaala cibaadadii u mudnaa. ayna ka maarmaynin jamaaco kastoo isku dayda inay dadka ugu yeerto xaqa oo ay dadka xaqa gaarsiiso. intaan xalaqo kale ku kulmayno, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فنحن جماعة الصادعون بالحق ليس أمامنا إلا هذا الطريق، أن نبلغ رسالة الله سبحانه ولا نخشى أحدا غيره، ولن يمنعنا من ذلك أي عائق مهما كان حتى نؤدي مهمتنا ونموت في سبيل الله ويتحقق قول الله فينا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.